wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland mudane Cumar Cali Cabdilaahi oo warbixin ka jeediyay kalfadhigii maanta ay yeesheen golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa wasiirku waxa uu kaga warramay xaaladaha degdega ah ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ay kaga hortagayso xanuunka coronavirus oo adduunka farabaas ku haya waxaanu sheegay wasiirku in xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo xil saaran caafimaadka guud ahaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay heegan galiyeen xarumaha kala duwan ee laga soo gala dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale dhakhaatiirta dhinaca aqoonta u leh caafimaadka taasi oo la doonayo in laga hortago xanuunkaasi kale waxaanu fariimo caafimaad aanu marinaa radio Hargeysa iyo TV-ga imagana waxa noo qorshaysan inaan bilowno isticmaalka TV-yada kale wargeysyada iyo fariimaha la isku diro telefoonka oo imagana ku jirno qorshahooda sidoo kale shalay jimcihii inkastoo aanay masaajidada dhan laga sheegin haddana wasaaradda awqaafta iyo wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta waxaan u gudbinay fariin caafimaad oo ka codsanay dhammaan masaajidada dalka in jumcaha laga sheego oo xanuunkan ku saabsan wacyigelintiisa taasina waxaan jecelahay jumcaha soo socda inay si guud oo dhammaystiran uga fusho masaajidadeena taasina waa waxyaabaha kale aan u isticmaalayno in dadkii lagu wacyigeliyo oo lagu gaarsiiyo xogta la xiriirta xanuunkan waxa kale oo aanu sameynay dalka waxa jira goobo laga soo galo oo aanu qaybinay laba qaybood sida caadigaana ama waa dhul ama waa cir ama waa bad laba qaybood baanu qaybinay qayb imiga aanu ka hawlgalayno oo aanu siinay ahmiyadda koobaad oo ugu horeeyo airport Hargeysa Wajaale Goreeyo Cawl iyo dekada Berbera iyo qaybaha xiga oo ka soo yeelow yacdo iyo kuwa xiga oo noqonaya xariirad salaxley markaad socoto balgubada ku jira halkaana waxaan imika xoog saarnay meelaha aan isleenahay waxba ka soo gali kara ayuube halkana waxaan xoog saarnay meesha loo jiray tukaraq koow waxaanu sameynay goob walba oo goobaha kamida waxaanu geynay muxuu ahaa shaqaale caafimaad labo shaqaalahaas waxaanu sameynay qalabkii ay isku ilaalinayeen yaanu siinay saddex waxaanu siinay qalabka lagula socon karo ilaa horta waxa la sameyn karaa waa in qofka xumadiisa la eego heerka marayso hadhowna la raaciyo qofkan halku ka yimid hadduu jeeyna ka yimid xumadiisuna ay sareyso waxay ku xog badan tahay hadduu qofka xumadiisu ay sareyso meel kale ka yimid marka hadhowna qofkii wareysiyo gaar iyo baaritaano gaar ah la sameynayo waxa kale oo sameynay koox walba oo tababarnay waxaanu u sameynay qof madaxa oo daba socda oo ilaaliya tayada shaqada ay bixinayaan iyo la socodka xaaladda soo kale waxaanu sameynay si loo dhiirigeliyo shaqaalaha waxaanu ka fikireynaa in shaqaalaha loo helo gunno joogto ah oo inta hawshaasi emergency-gu socdo ay ku hawlgalaan Cumar Cali Cabdilaahi wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland sidoo kale waxa uu golaha guurtida Soomaaliland oo ka codsaday inay kaalintooda iyo doorkooda ka qaataan ka hortagga xanuunkaasi isla markaasina ay wasaaradda kala shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa xanuunkaasi waxaan kaga baxayaa afar qodob oo aan isleeyahay waa codsi oo muhiim ah oo ka koobaad yahay in laamaha dawladda oo dhan oo idinku qayb ka tihiin in arintaas sida horeba dareenka aad u yeelateen dareenka la joogteeyo iyo labo in aynu ma jiro haddii xaalad degdeg timaado fan ama dhaqaale lagu tala galay oo wasaaraddu ay ilaa ay magaalada ma jiro taana kulay in marka horeba marka miisaaniyaduhu la ansixinayo ee lagu jiro inaynu dhugtaasi yeelano oo imgun ma ahe dhowr jeer horena wayna soo maray xaalada noocan ah taasna inaynu ka diyaar garowno iyo qodobka saddexaad oo ah imika hadii ay dhacdo in xaalad la arko xaaladda waxa ku qasbanahay in qofka isolation lagu sameeyo meel gaar ah lagu hayo hadii ilaahay ma keenay ay badatana in quarantine la geeyo dadkii gaar loo xidho wali sharcigii caafimaadka guud inooma yaalo kaana waan soo bilaabaynaa markuu idin soo gaarno waxaan jecelahay in si dhaqso ah loo meel mariyo laakiin kulli hadii timaado xaalad degdeg ah cidna la dhageysan maayo anagu baa wixii wasaaradda caafimaadka ku taliso baa noqonaya lagu shaqeynayo lagu hawlgalayo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland sidoo kale waxa uu ka warramay adeegyada wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland iyo sidoo kale cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ay u qabtaan bulshada